isku soo xiray yaa asaga fariis yaqaanaan inuu toon ilmaha naga sarcaadiyay xamar sayta la markaysan xamar saal maaragta dilay ku reeyay si aan kala hayman maan warni xamar adiga warni ku daas xamar soo dhaysay tarta xamar weligii standard iyo raboorka soo dhaafina laga yaabo 10 sano oo la soo dhaafay marka xamar ma kaali ka tibadiga sayta xamar jaayil baad ka tahay waxaan leeyahay almaru aduun amma jahil anhu shakhsi jaayil kale oo ka warqabin marka waxaan ka rabnaa anaasirta caynkaasa inaad xamar ka xoreysaan inaad taladeeda ka xoreysaan inaad codkiina ugu xoreysaan codkiina ugu xoreeyaan min meel isku soo xiri inuu xamar asaga taladiisa wax laga weydiiyo haddaad laakiin kaarka qaadan weydaan ninkaas caraysana xamar taladii asaga talada laga weydiinayo ogaad horta laakiin hadda talada madaxweyne xasan sheekh maxamuud adinkoo gacanteedii soo gelishay adinkoo rabaa inaad heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaran aad wax doorataan haddii taa dhici weyso aad yacni indhasarcaadkaas aad yeeshaan taladiina ninkaas caraysan ayaa laga jirinayaa marka waxaan idin leeyahay shacabka muqdisho baraaruga sheekadaas in badan ayaa laydinku indhasarcaadinayay ka xorriyada maqaamka caasimadan ay yeelanaysana sida xildhibaanada sharafta la sheegeen baarlamaankii hor yaallaa maanta jabtarfaaf ayaa baarlamaankii hor yaallo waxa aan rabnana waa sheegnay bulshada waxa ay rabtana waa sheegtay waana ku celcelinaynaa waxaan rabnaa muqdisho oo ah caasimad dowlad goboleed ah ayaan rabnaa oo aqalka sare matalaad ku leh ayaan rabnaa oo ilaahay ku reeyaadihii dowladda ee heer federaal hadday ahaadeen booliis hadday ahaadeen wasaarado maaliyadeed iyo wasaaradihii kale hay'adihii federaalka heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedka inay isbarbar shaqeeyaan rabnaa magaaladan xaruntii wadankana ay noqoto isla markaasna dowlad goboleed madax bannaan oo caasimad dowlad goboleed ay noqoto yacni arrintaasna waa arrin caalamka ka jirto magaalooyin waaweyn ayay ka jirtaa waxbina oo ka jirana wada shaqaynta labada hay'adood ma jirto taasaan doonaynaa wax ka sokeeyana marano xubnaheena baarlamaanka iyo dariiqaas qaabka sharcigana waa u maraynaa shacabkana waxaa rabaa rabitaankiisa in uu muujiyo haddii intaas loo gaaro laftarkooda waa inaad doorashooyinkan aad codkiina ku dhiibataan oo maamul la doorto uu halkaan yimaado maamul la doorto uu halkaan yimaado marka waxaan idin leeyahay shacabka muqdisho mar labaad mar saddexaad kugu celinayaa ka faa'iideysta fursaddan taariikhiga taladii dalka iyo xukunkii lagu soo celiyay shacabka doorta madaxdiina doorta si aad madaxdiina u doorataanna kaarka codbixinta qaata xildhibaan cabdixakiimna aad ugu sheekeeyey muhiimadda ay leedahay doorashada horumar baa lagu gaarayaa barwaaqaa lagu gaarayaa dariiqeedana waa iska caddahay maxaa yeele qofka doorashada rabo barnaamij siyaasadeed iyo waxqabad wax baan iskuulaad baan dhisayaa yacni wuxuu leeyahay wadooyin baan dhisi doonaa haddii masiajir baan dhisi doonaa nadaafadda iyo bilicda baan ka shaqay doonaa wadabou soo tuxaya asaga ururkiisa soomaan hadda haddii uu yimaado waa inuu ka shaqeeyaa haddii uu ka shaqeyn waayo shacabkii waa la xisaabtamayo oo ridayo ama doorashada soo socota ku fashilmaya marka bacdamaa waxa la qancinayo ay noqonayaan shacabka waxa lagu tartamayo ay noqonayaan waxqabad taas maxaa ka dhalanayo waxaa ka dhalanaya marka horumar iyo barwaaqa ka dhalanaya marka horumar iyo barwaaqa ka dhalanayo mid baa xooga saari doona nabadgelyada wax ka qabanaya shabaabka wadanka ka horeynaya awgeed asagana waa lagula xisaabtamaya